Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkeenii xulashada. Barnaamijkeena xulashada maanta waxaa marti ku ah dalka Niger. Daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. Niger waa dalka ugu weyn galbeedka Afrika, waxaana uu xuduud la wadaagaa 7 dal. Dal xidhan oo ku fadhiya bad ahaan 1 milyan oo kiiloomitir oo isku wareega. Niger waa dalka 6aad ee ugu weyn gaar ahaan qaaradeena Afrika, waxaana uu qaybsamaa ilaa 7 gobol iyo caasimadda dalka oo ah Niamey. Niamey waa xarunta ugu weyn ee dhaqaalaha dalka Niger, waana caasimadda dalka Niger. Niamey waxay ka mid tahay caasimadaha ugu kulul dalka caalamka. Warbixinta ugu dambeysay ee qaramada midoobay tirakoobka magaalada Niamey waxay ka fadhidaa kaalinta 6aad. Niamey waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu kulul caalamka, waxaanay ka mid tahay magaalooyinka aadka u kobcaya ee tiradoodu ay aad u badanayso. Magaalada Niamey waxaa ku nool dad ka badan tiro ahaan 600,000 oo qof. Magaalooyinka waaweyn ee dalkan dhaca waxaa ka mid ah magaalada Zinder, waana magaalada 2aad ee ugu weyn dalka Niger, waxaanay dhacdaa dhanka koonfur galbeed ee dalka Niger. Magaalada 3aad ee ugu weyn dalka Niger waxaa la dhahaa Muradi, waxaanay dhacdaa bartamaha dalka Niger. Waxaana jirto magaalo lagu magacaabo Nijader oo ah magaalada 3aad ee dalkan ugu weyn, waana mid lagu naanayso albaabka ugu weyn ee laga galo saxaraha qaaradda Afrika, waxaanay muhiim u ahayd ganacsiga u kala gooshi jiray saxaraha. Waxaana magaaladan laga helaa masjidka ugu weyn ee lagu dhisay ciidda dhoobleeda ama sida loo yaqaan dhoobada, waxaana masjidkan loo diiwaangeliyey masjidka ugu weyn uguna dheer ee lagu dhisay dhoobada guud ahaan caalamka. Dhulka Niger 4 waa oomane ama dhul biyo la'aan ah. Waqooyiga dalkan guud ahaan dhammaantiina waa dhul saxare ah. Waxaana dalkani ka mid yahay mashruuca Great Green Wall uu Midowga Afrika bilaabay sanadkii 2007. Ujeedka mashruucan yahay in dhirayn laga sameeyo 11 dal oo ka mid ah qaaradda Afrika, looga hortago saxaraha ku sii fidaya qaaradda Afrika. Waxaana dalkan ka mara dhinaca koonfur Afrika webiga webiga 3aad ee ugu weyn qaaradda Afrika. Webiga ka waaweyn waa webiga Nile iyo webiga Congo. Webiga Niger waxa uu maraa dalalka kala ah Niger, Benin iyo Nigeria. Waxaana ka soo burqada taagag dhaca Jamhuuriyadda Guinea. Niger waa dalka 56aad ee ugu badan caalamka, waxaana ku nool dad tiro ahaan lagu qiyaasay 25 milyan oo ruux. Waxaana xusid mudan dalkani inuu xuduud la wadaago dalka ugu tirada dadka badan ee Nigeria, soo xidhiidh bulsho oo qoto dheer ay wadaagaan dalka Nigeria. Niger waa dalka ugu dhalmada badan caalamka, waxaanay dad ahaan dhalaan tiro celcelis ahaan marka la eego tiro ilaa 6 carruur ah. Waxaana la saadaalinayaa sida qaramada midoobay ay sheegtay 2040 inay tirada dadkani gaadho 51 milyan oo qof. Waxaanay tirada dalkani ahayd 1950 3 milyan oo qof oo keliya. Sidoo kale Niger waa dalka 8aad ee caalamka, Afrikana dalka 2aad ee ugu cayilnaanta yar ama buurnaanta. Dadka Niger tiro ahaan 50% waa dad dhalinyaro ah, da'dooduna ka yar tahay 40 sano. Inta badan dadka dalkan u dhashay Niger waa dad xoolo dhaqata ama reer miyi ah. Waxaa keliya magaalooyinka ku nool 21%. In ka badan tiro ahaan 99% waxa ay haystaan dadkan diinta Islaamka. Qowmiyadda ugu badan dalka Niger waxaa la dhahaa Hausa,
taasoo ka dhigan inay boqolkiiba 50 ay ka yihiin dadka ku nool dalka. Waxaana ka mid ahaa qowmiyadaha dalkan ku nool ee kale Jarma iyo dadka loo yaqaan Dariiq ama Tawaariqa. Qowmiyaddii ugu horreysay ee degta dalka Niger waxaa lagu magacaabaa Tawaariqa, waxaana lagu sheegaa inay dadkii xoolo dhaqatada ugu horreeyay dalkan dega ay yihiin. Marka laga yimaado luqadaha kala duwan ee dalkan, luqadda rasmiga ah ama koowaad waa luqadda Faransiiska. Waxaana la aaminsan yahay sida ay sheegtay Qaramada Midoobay inay dalka Niger dadka ku nool gaadheen 60,000 oo sano ka hor. Waxaana la sheegaa qarnigii 10aad ilaa qarnigii 18aad inta u dhaxaysay inay Niger ka mid ahayd dhowr imbraadoroyood oo soo maray qaaradda Afrika. Waxaana ka mid ahaa imbraadoriyadii ama boqortooyinkii soo maray waddankan boqortooyadii lagu magacaabi jiray Kinimboraha ama boqortooyadii Mali iyo boqortooyooyinkii Shunhai. Dhammaadkii qarnigii 19aad Faransiiska ayaa waxa uu bilaabay inuu qabsado dalkan. Waxa uuna dalkani si rasmi ah uga madax bannaanaaday 1960kii. Haddaba xorriyadda kadib, dalkani waxa uu la kowsaday nidaam dimuqraadi ama nidaam kelidii talis ah. Kadib markii madaxweynihii ugu horreeyay dalkan ee lagu magacaabi jiray Kalami Diori, kadib markii uu aasaasay hal xisbi oo keliya, uuna xukunka hayay intii u dhaxaysay 1960kii iyo 1974. Niger waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ee soo maray afgembiyada iyo dhibaatooyinka iyo dagaalada ka dhaca qaaradda Afrika. Waxaana ku xusan qaaradda Afrika waddankan inuu ka mid yahay oo ay soo mareen abaaro aad u daran, galaaftayna dad badan oo ka mid ah dalka Niger. Waxaana haatan dalkan madaxweyne ka ah ninka lagu magacaabo Maxamed Bazoum, kaas oo dalka la wareegay 2022kii. Calanka dalkan waxa uu u taagan yahay dhibicda koowaad oo ah oranji, una taagan xorriyadda dalkan Niger, iyo 3 midab oo kale. Midabka oranjiga waxa uu u taagan yahay dhulka waqooyiga bariga ee dalka Saxaraha Niger. Calankuna waa midab matalaya dambi la'aanta iyo daahirka iyo nabadda. Halka midabka cagaaran uu u taagan yahay midabka dadka inay yihiin dalkani dad beeraley ama dhulka cagaaran ee dalka Niger. Sida uu calanka dalkani waxa uu isku eeg yihiin dalka Ireland, dalka India ama Bricos.